sida xogaha aynu ku helayna Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku guuldareystay wadahadallo uu ka dalbaday odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamulka uu hogaamiyo beelaha ku midaysan. waxaa xogo ay tibaaxayaan in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu ka shaqaynayay kulan dhinacyadan uu kula yeelanayo caasimadda dowlad goboleedkaas ee Garowe, gaar ahaan madaxtooyada, si uu gala xaajoodo tabashooyinka ay ka qabaan maamulkiisa iyo sidoo kale qorshaha goon isku taagga ay ka soo horjeedaan shacabka iyo waxgaradku intaba. arrintan oo ay madaxtooyada Puntland si weyn uga shaqaynaysay ayaa fashil ku soo dhamaatay kadib markii waxgaradka Puntland si cad ay u sheegeen in marnaba aysan Siciid Cabdullaahi Deni kala xaajoonaynin arrinta ku aadan goon isku taagga, taageerana uusan uga helaynin. arrintaasna waxay ku sheegeen inay tahay qariska tuurnimo iyo mid lagu kala geynayo shacabka Soomaaliyeed. Siciid Cabdullaahi Deni intii labadaas uu qaadana ay ahayd mid halis Puntland u horseedaysa. sidaas ayuu kulanku ku baaqday oo odayaasha ayaa dhankooda diiday inay aqbalaan casuumaad uga timid dhinaca madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. intaas kadib waxaa bilowday in la abaabulo xubnaha taageersan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo xukuumaddiisa si loogu ballamiyo kulan kale oo Deni ay la galaan loogana dhigo in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Puntland ay taageeraan goon isku taagga xukuumadda Garowe. waxaa arrintan ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan Siciid Cabdullaahi Deni maamulkiisu uu ku dhawaaqay gebi ahaanba inuu xiriirka u jaray dowladda federaalka Soomaaliya. waa kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya qalinka ay ku duugtay 4 cutub ee ugu horeeya dastuurka oo wax ka bedel lagu sameeyay. xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliyana ay dooda adag ka yeesheen. waxaa dhanka kale maamulka Siciid Cabdullaahi Deni uu bilaabay in xiriir uu la sameystay dowladaha cadaawadda baan u haya Soomaaliya kuna howlan kala goynta iyo kala geynta shacabka Soomaaliyeed sida Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta oo labaduba xilligan xurguf siyaasadeed oo xoogan ay kala dhaxayso filla Soomaaliya. dhinaca Puntland waxaa Siciid Cabdullaahi Deni maamulkiisu u diray xubno ka socday xafiiskiisa, waxaana kulamo ay la soo qaateen xubno ka tirsan hoggaanka sare ee xukuumadda Hargeysa, iyadoo la isla meel dhigeen in xiriir dhinaca iskaashiga amniga ugu horeeya ay wada galaan, taasi oo ka sii daraysa xaaladda ka dhaxaloosan labada dowladood ee Ethiopia iyo Soomaaliya. dhanka kale madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay ugu cilqabaan doorashooyinka boobka ku dhacay ee dib ugu soo laabtay, maadaama doorashooyinkaas qorshihii qof iyo codka ahaa markii hore uu ka diiday odayaasha inuu ka tanaasulo, marka dambena uu boobay kuraastooda oo xildhibaanada golaha wakiilada habgacan marooqsi ah lagu soo saaray. odayaasha dhaqanku waxaa sidoo kale ay diidanayeen in xildhibaanada doortay Siciid Cabdullaahi Deni lagu soo daro kuraasta ay ka tanaasuleen maamulka SSC Qaatumo ee fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuwaasi oo si cad u sheegay in marnaba aysan hoos tegin maamulka Siciid Cabdullaahi Deni ayna gebi ahaanba kala baxeen xubnihii ay ku lahaayeen maamulka. arrintaas Siciid Deni ayaa ku gacan sayray, waxaana si qasab ah uu isagu gacantiisa ugu soo qortay xubnaha ka imaanayay dhinaca Laascaanood ilaa ay hadda ka tirsan golaha wakiilada, waxaana uu sheegay in meel cad lagu kala bixi doono ee aan laga aqbali doonin reer SSC Qaatumo in ay iyagu ka baxaan saamiga ay ku leeyihiin dowlad goboleedka Puntland. arrintaasna waxay timid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay aqoonsatay maamulka SSC ee fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood. tabashooyinkaas oo dhan iyagoo qaba odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ayay ugu darsantay arrinta ku aadan goon isku taagga oo shacabka reer Puntland oo dhan ay ka soo horjeedaan. sida shacabku diidan yihiin arrintaas waxaa muujisay tilaabo Siciid Cabdullaahi Deni uu qaaday kadib markii uu amray in laga mamnuuco calanka Soomaaliya deegaanada dowlad goboleedka Puntland, lagana bilaabo xafiisyada iyo in laga dejiyo xarumaha caanka ah, waxaana laga dejiyay calanka Soomaaliya aargada amaba barxadda caanka ah ee Garowe, taasi oo daqiiqado kadib shacabka reer Garowe ay ku xardhaan calanka Soomaaliya si degdeg ahna ay ugu soo celiyaan calanka la dejiyay. waxaa arrintan ay muujisay in shacabku ay u taagan yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed, marnabana aysan raalli ka ahayn in ay Puntland u dhaqaaqdo qorshe la mid ah kan Somaliland iyo in shacabka lagu colaadiyo isticmaalka calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. si kastaba waxaa suurtagal ah sida xogaha soo baxaya itibaaxayaan in wadahadallo loo furo dowladda federaalka iyo maamulka Siciid Cabdullaahi Deni. arrintaas waxaa ka shaqaynaysa dowladda Djibouti oo sida la sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qorsheynaya in dhinacyada uu ugu yeero magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti, inkastoo filla Soomaaliya marka hore arrintaas ay ka doorbidayso in qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada loo diray Siciid Cabdullaahi Deni si tabashadiisa ay u soo dhageystaan uguna soo qanciyaan wadahadallo inuu la galo dowladda federaalka oo aan dal kale loo aadin wadaxaajoodka Puntland iyo dowladda dhexe.
kulanka golaha wadatashiga qaranka ee dhowaan qabsoomi doona ayuu qorshuhu yahay arrintaas in lagu lafaguro miiskana lasoo saaro habkii lagu xalin lahaa tabashada Siciid Cabdullaahi Deni uu qabo ee ka soo bilaabatay kuraas muhiim ah oo uu ka filayay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka waayay maadaama Deni uu ka mid ahaa dadkii dagaalka ugu adag ee siyaasadeed u soo galay in isbedel wadanka uu ka dhaco oo meesha laga wareejiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne hore ee dalka oo arrimo siyaasadeed ay isku maandhaafeen.